We better roll. Go. Um, maroodigu waxa uu ka mid yahay boqortooyada xayawaanka bahda lafdhabarleyda ah gaar ahaan qoyska ballaaran ee naasleyda sidoo kale waxa uu ku jiraa jilibka hoose ee bahda maroodiga kuwaas oo leh gacanta dheer bahda cilmiga saynisku waxay ugu yeeraan loksanda asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya iyo koonfurta qaaradda Aasiya badanaa waxaa laga helaa dhulka kaymaha ah ee dhirta badan leh iyo qayb ka mid ah saxaraha guud ahaan maroodiga adduunka ku nool waxaa loo qaybiyaa laba nooc maroodi asal ahaan ka soo jeeda qaaradda Afrika kaas oo ka weyn kan kale iyo mid asal ahaan ka soo jeeda qaaradda Aasiya luqadda Ingiriiska waxaa loo yaqaanaa elephant Carabigana fiilun afkeena Soomaaliga guud ahaan waxaa loo yaqaanaa maroodi kan labka ah waxaa loogu yeeraa arbe boorar ama qoraaje tanadigana qalanjo ama goso marka ay yaryar yihiin waxaa loo yaqaanaa unfanays ama boojay sidoo kale marka maroodiga labka ah gaar looga sooco ama kooxdiisa laga saarana waxaa loo yaqaanaa rujub markay koox yihiin waxaa loo yaqaanaa bool maroodi ah cimriga maroodigu waxa uu gaaraa 48 ilaa 70 sano culayskiisana 4000 ilaa 6000 oo kiilo waxa uu leeyahay 56 hidde iyo 26 ilkood maroodiga sidkiisu waxa uu gaaraa 18 ilaa 22 bilood maroodiga yaryarka ah waxa uu ku qaan gaaraa 10 ilaa 12 sano waxa uu quutaa waxyaabaha ka soo jeeda dhirta gaar ahaan maalintii maroodigu waa xayawaanada leh dhiigga diiran iyo kuwa leh halka calool labada fol ee maroodiga Soomaali ahaan waxaa loo yaqaanaa fan ama fol maroodi maalintii waxa uu seexdaa 4 ilaa 6 saacadood isagoona saacadii jari kara masaafadan 40 kiiloomitir waxa uu leeyahay xasuus aad u dheer iyo dareen ur oo aad u sareeya waxaa jira dhibaatooyin ay kala kulmaan maroodiga dadyowga dhaqda kuwaasoo aad uga feejigan taasoo ah marka uu caroodo inuu cagta mariyo dad iyo dunyo wixii uu arkaba maroodigu waa xayawaanka ugu weyn xayawaanada ku nool dhulka dushiisa waxa uuna ka mid yahay xayawaanada aan wax ugaarsan iyagana ay yar tahay in la ugaarsado maroodigu waxa uu ka neefsadaa gacantiisa dheer kaasoo dhirtaba ku soo qabsado marka uu daaqayo waxaa badanaa loo ugaarsadaa si loogala soo baxo foolashiisa oo qiimo aad u sarreeya ka jooga suuqyada ganacsiga ee dunida kuwaasoo ganacsigooda laga dhigay sharci darro waxa uu ka mid yahay xayawaanada oo Allaah Qur'aanka ku xusay kaasoo siday isku raacsan yihiin badiba culimada islaamku hilibkiisu xaaraan yahay ugu dambeyntii maroodiga adduunka ku nool waqti xaadirkan waxaa lagu qiyaasaa in ka yar 500,000 oo maroodi dalka ugu badan ee laga helana waa dalka Botswana ee ku yaala koonfurta qaaradda Afrika